السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنان، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد waxaan salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka, salaanta ciisada iyo sharafta leh. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan magacaygu waa Sultaan Cabdullaahi Maxamuud, maamulaha macadka culumta daraasaadka ee siyaasadda Midnimo Institute for Political Science and Knowledge. maanta waxaan rabnaa insha Allah inaynu sharaxno cashar yar oo kooban oo haddana macno weyn xambaarsan. waa cashar entrepreneurship la yiraahdo, hal abuur ganacsi. qofka hal abuurlaha leh oo hal abuurka ganacsi leh baynu rabnaa insha Allah inaan maanta sharaxno. casharkan saan wada ognahay waa cashar aad iyo aad very talented. waa cashar waxa weeye runtii dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee dhowr jeer iga soo dalbadeen. waana wax loo baahan yahay in waxa weeye hal abuur ganacsi la yimaado, in dalka shaqo abuur loo sameeyo, in waxa weeye dhalinyaradii iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan waxa weeye maskaxdooda, caqligooda ay la kaashadaan si waxa weeye maskax caafimaad qabta ay u soo saaraan xogog la xiriira arrimaha ganacsiga. waan ogahay waxa weeyaan Soomaalidu inay yihiin dadka aad ka feerin talent ugu maskaxda badan, walidaalika haddana kuma baraarugsana awoodaha ay leeyihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa naga madax celinaynaa. marka maanta waxaan rabnaa insha Allah inaynu sharaxno entrepreneurship, hal abuurka ganacsi. waxa weeyaan waxaa soo diyaariyey macadka culumta daraasaadka siyaasadda anigoo Sultaan Cabdullaahi Maxamuud oo soo jeedinaya. intaan casharka gelin horta Soomaali ahaan baa idinkugu soo taxnay oo table of contact baanu sameynay. waa maxay ganacsi? waa maxay hal abuur ganacsi? tilmaamaha leeyahay hal abuurluhu, maxaa sababa in hal abuurla wax wala la yimaado, maxaa hor istaaga hal abuurnimada, sidee kor loogu qaadi karaa hal abuurnimada, wadada hal abuurnimada, sidee loo heli karaa fikrad ganacsi, sidee loogu rogadaa fursad ganacsi, sidee loo qiimeeyaa waxtarnimada fikradda, sidee loo sameeyaa qorshe ganacsi, muuqaalka qorshaha ganacsiga, bilaabidda ganacsiga, qaybaha ganacsiga, corner principle muxuu ka yiri fikirkii corner, sidee loo maalgeliyaa ganacsiga, fair BS oo shuruudaha fair BM ka sharaxi doono, xaaladaha uu maro ganacsigu, maxaa kobaca ganacsiga keena, maxaa hor istaaga kobaca ganacsiga, systemku ku tirsanaya ganacsiga. insha Allah intaas waa soo qodobaynay, waa soo analyze gareynay, waa inta ugu muhiimsanayd baan rabnaa insha Allah in bulshada la wadaagno. qodobka koowaad waa maxay ganacsi? ganacsi waa maxay? in badan waa la isweydiiyaa, dadku waa ay ganacsadaan, laakiin ganacsi muxuu yahay? waa shaqada la qabanayo oo qof ama shirkad ay qabanayso si loo soo saaro lacag iyo faa'iido iyadoo loo marayo iibin iyo wax soo gadasho badeecad ama adeeg iyadoo loogu adeegsanayo ama iyadoo loo adeegayo dadweynaha guud. intaas lagu qeexi karaa waa shaqada la qabanayo oo qof ama shirkad ay qabanayaan si loo soo saaro lacag iyo faa'iido iyadoo loo marayo iibin iyo wax soo gadasho badeecad ama adeeg iyadoo loogu adeegayo dadweynaha guud ama bulshada. ganacsigu waa nidaam dhaqaale oo alaabta iyo adeegyada shirkadda hayso lagu bedelanayo lacag. waanu naqaanaa dee waxa weeye ganacsigii qofka wuxuu keensanayaa badeecad, alaab buu keensanayaa, waxyaalo badan buu soo dejinayaa, suuqii buu soo camiraya, fursadihii uu jiray buu abuuranaya, modification buu samaynayaa. kadib muxuu u baahan yahay isagu adeegyadaasi shirkaddu hayso si loogu bedelo lacag baa loo baahan yahay, money to cash, si lacag loo helo. waana wax very talented. waa maxay hal abuur ganacsi? Kaitlon wuxuu yidhi says entrepreneurship is who have a risk reward of profit. waxa uu ku macneeyo qof kasta oo ku xisaabtama faa'iido aan la hubin in la heli doono ayuu ku macneeyay ninkii la oran jiray Kaitlon. Karisnerna muxuu ka yiri ama muxuu ku qeexay qof digtoon oo aysan dhaafin fursad faa'iido leh, oo qof digtoon oo og suuqii la socda, analyze gareynaya, suuqii ku dhex jira, waxyaalo badan og, waxa weeye aysan dhaafi karin fursad hadday soo midhana fursadiisa ka faa'iideysanaya. Karisner buu ku qeexay. kii la oran jiray kii kalena wuxuu ku qaxay Kaitlon
qof kasta oo ku xisaabtama faa'iido aan la hubin in la heli doono macnaheedu Shane Bancher muxuu ku macnayaasna wuxuu yiri waa qof ikhtirac qaab cusub oo wax soo saar iyo badeecad cusub leeyimi waa qof wax ikhtiraacay oo nashqad cusub iyo wax soo saar cusub iyo badeecad cusub leeyimi waa qof shaaca ka qaaday suuq cusub iyo wadooyin cusub qofka abuura shirkad ama shirkad cusub. If you can't be fast in a category, set up a new category you can be fast in. عربي إحنا وحكون إذا لم تتمكن من أن تكون الأول في تصنيف أبدا تصنيف جديد تكون أنت فيه الأول. إذا لم تتمكن من أن تكون الأول في تصنيف أبدا تصنيف جديد تكون أنت فيه الأول. معناها شان بيتر وحا وكوضا وحا وبربورية تصم معناها هذو تهي مركي سوق لكيانو فكرة عصب أي ماشي كساريسا فرصة هورا أو جرتين تصالحان تلفون دي واقع هورجيري جري تلفون كل هورجيري تار كوحل اسمو درو جري وحاويان لو أدرسين جري عقاها يددك وحوك لها بين جري وحصوت بحي سهل وحاولان ولذلك وحي كنت سيسا فرصة ماشي كساري haddana fursadaas aan meesha ka saadhaway guud shaaliyar muxuu yiraasna waa qof dhabarka u ritay khatar la saadaalin karo mas'uuliyadeedana uu qaadanayo wixii ka dhashay micnaha wuxuu ka wadaa micnaha waa qof ku dhiiraday waa qof waxa weeyaan decision making go'aan degdeg ah qaatay sidoo uu abuuro suuq cusub shirkad cusub nashqad cusub wuxuu ikhtiraacay la suuq keenin lahaa hadii uu meeshaas ku khasaari lahaana mas'uuliyadda asaga qaadan lahaa inta badan walidaalika 90% faa'iidadu waxa ay agteeda joogtaa riski oo hadaan riski u dareerin profit helimis marka madu inta badan waxa ay yiraahdaan the very risky for talent to profit hadii aad riski gasho waxa aad faa'iideysaa فائدة عن وحوي آدم أوجي ولذلك لكن هذا ريسكي كبضه والعكت أن تقلين له أضحيسته وبخارده يكون طالو العكت value هوس ما يقول عايزه ولذلك دور سنة كده بحنا أكن العكت هنا قيمة بيشو قيمه سوق الجوجل وهوس وجدوجل مركا هل أبور نمد ووحلو باهنيان ووحل إن برشة الصومالية كل يردان ووحل قف كستو oo waxa weeyaan fikirkiisa ganacsi inuu meel marsado tilmaamaha uu leeyahay la abuuro insha Allah mar dambe ka dhigan doona intaas maanta 10 koowaad ku egyahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.